السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودyaasha qiimaha badan ee ku xiran kanaalka Dalwanaaji TV waxaan halkan kula wadaagaynaa falanqeyn kooban oo aanu ka sameynay ciyaarta xiisaha badneyd ee galabta dhexmartay dalkeena Soomaaliya iyo dalka Burundi ciyaar ka tirsan koobka Sekafa ee ka dhacaysa dalka Uganda ciyaartan ayaa ku soo idlaatay 1-0 oo ay guusha ku raacday xulka dalkeena Soomaaliya daqiiqadii 40aad waxa uu dhaliyay ciyaaryahanka Safi Mayo, Eunice is opening up. Oh, now goes to the legs of Omar! Cracker! 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 Just look at how the stadium goes down. Abdullahi Omar with the beauty of the goal. Somalia leading Burundi by 1-0. And the goal scorer, Omar Abdullahi. What a cracker. guushan ayaa micno weyn ugu fadhiday moraalka ciyaartoydeena iyadoo dadweynaha Soomaaliyeed ay aad u soo dhaweeyeen guusha uu xulka Soomaaliya ka gaaray dalka Burundi waxaana la filayaa in 15 bishan ciyaartoyda Soomaaliya ay ciyaar aad u xiiso badan la yeelan doonaan xulka dalka Eritrea haddaba daawadayaal waxaan inta ku soo gabagabeynaa falanqeyntii koobneed oo aanu ka sameynay kulankii galabta dhexmaray dalalka Burundi iyo Soomaaliya